بسم الله الرحمن الرحيم المقعد ومستفى عبد الله قادر jiheeye lagu naanayso ama ku magac dheer waxaan iskuul macalin ka tirsan dugsiga sare ee IRSHAD ardayda fanfurada maadska u dhiga insha Allah waxaan oran lahaa ardayda sanadkan baxaysa ee dugsiga sare ee IRSHAD kuwa guuleystay ay ka dhigo dalkooda dadkooda diintooda wax soo kordhiya mustaqbal fiican oo idin rajeynaya insha Allah iswaaymeyno isloomayno insha Allah ilaahay wuxuu naga wada dhigi doonaa kuwii ifka iyo aakhiraba isku arka waxa kale oo talayda soo jeedina insha Allah imtixaan baad galaysiin bulsho ayaa la tartamaysiin ilaahay aad ku guuleeyo imtixaanka aad galaysiin ka aakhiraba waxa kale oo kulli talaya tusaale waxaan isku soo siinay klaaska laakiin insha Allah videoga clipka yar la duubayo waxaan ku waarinayaa ardayda in dhaqanka iyo diinta iyo dalka iyo dadka iyo nasabiyada la ilaaliyo sababtoo haddii aad bulshada tahay imika bulshada ka tagaysaa bulshada kale la dhaqmaysaa meelo kala duwan baad tagaysaa jaamacadaad bixi kartaa wadamo qaalaad baad tagaysaa diinta islaamka baa laga aaminsanayn dhaqankaaga iyo diintaada ilaali baan ku oran lahaa insha Allah ilaahayna kaa dhiga kii faaiisa wadanka iyo dadka wax soo kordhiya waxaan idin rajeynayaa guul iyo gobonimo insha Allah waxaan idin ka filayaa sanadkan inaad guul isku soo jeedin doontiin waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa dhammaan afarta galaas ee dugsiga sare ee IRSHAD muddo sanadka 3 sano aan la soo shaqeynayay ama aan wax u soo dhigayay waan ka mahadcelinayaa sida fiican ee aad soo dhaweyseen ee aad ixtiraam jirteen ee qadarin jirteen ee ila socoteen waliba si hagar la'aan ee ixtiraam jirteen saan qof kale loo ixtiraamin mid kale aan dooran lahayo kulli maamulka iyo macallimiinta iyagana hambalyaayaan leeyahay waan ka salaamay halkan waxa jooga iskuulka IRSHAD macallimiin xul ah oo tayo aqooneed iyo diimeed bal leh qofku hadduu diin aan lahayn aqoonta uu leeyahay kala waa iska yartaa marka insha Allah maamulka dugsiyada IRSHAD aad iyo aad baan uga salaamayaa oo ugu horeeyo gudoomiyaha jamciyadda IRSHAD محمد آدم عسكر يوم مملوها دوسك سريع إرشاد مستر عبد الرحيم حسين يوم مملوك حكاك عبد الرحمن قلت يوم مضحى استونا فايرسكا عبد الناصر بيلي يوم معلمين تكلا إلى فيلكا إلى مادة الدكتور سيدا ورالكي ونادي أدو شعله وآدي أدو قدر ونين آد عن قدر هاي وأردنا نوها قربها aqoon ilaahay ku marnaystay akhlaaq ilaahay ku marnaystay oo magaciisu leeyahay oo halkan magaciisa aad iyo aad ugu xusaayo oo la ilaaho Cabdi Xakiin Baashe Cabdullaahi oo muddo 4 sano ah rafiiqana isku kalaasahay oo ahay ardaygii ugu horeeyay soo marka arday waana jaamacadda aan wada dhigaynay ee galaaska isku horbaranay walibana waxay habeen sabti soo galayso macallin baa noogu jiray maaddo noo dhigayay ومعلنك عبد الحكيم وأرضي جورين جامعة سكور براني يعني سكور جلاس نقولي أنا وحش وداعني معلنك سؤالي أدودري معلمات كراي سكور كوحكة لكتها قالي عن أحمد يوسف ونقولك أحمد يوسف قدافي والله أنا سكور جلاس نسمعين يدنا أنا جامعة عبد سكور هاي سكور فيل عنه هاي يدستون سكور هاي عندنا سكور فيل عن فيسي مات عن إيمات معلمات أنا أدي أدبان هالكم وسلامية ومعلمات قرأت إسكول كاو قشة والنمعو وحكرون أدي أدو سلامية معلمين تكلا قيمها هي قاية هلا أي هالكم وسلامية ونادي أدو سلامية وحنلي إسكول كإرشاد وإسكول كبرحد عليه اسمها عليه أدي ده لقتها إنتها صوت نوعه وحنلي إسكول كإرشاد يان لي اللوبي يان له المامي إرشاد هتاجناته هتشرته وهتشرته waxaan oranayaa waalidka videoga daawanaya ama dadka kale aqoonyahanada ee videoga daawanaya IRSHAD waxa uu adeegtaa bulshada gaar ah ma adeegto waxa uu adeegtaa bulshada nooc kasta ay tahay marka waxaan leeyahay yaan la hilmaamo dugsiga sare IRSHAD dugsiga sare IRSHAD wuxuu ku yaalaa iskuul meel barxadiisu fiican tahay jawigiisuna fiican yahay wuxuu ku yaalaa xaafadda masallaha airportka ay dhinaca waqooyi kaga soo jeedaa waxaan markaa oran lahaa ardayda soo galaysa nidaamka iyo dhaqanka iyo habka muska iskuulka hal la ilaaliyo ardayda sanadkan soo baxaysa ee imika fanfoor galaysana insha Allah waxaan leeyahay kuwii faa'iido kana ka dhigo sidii kuwii fanfoor u diyaar garoobay lahayd ka dhigo ardayda kale iskuulka dhigtana waxaan leeyahay dadaala ilaahay
dadaalkaan ahayd la garab galo guuriyo gobonimo isku inay noolaada ardayda dugsiga sare ee IRSHAD gaar ahaan ardayda sanadkan baxaysa ee foonfoorada hablayayna ambalyan